nin siyaasi ah gurigiisa inta tegay wiilal 5 wiil oo askar ah kullaay oo ilaa hadda meel lagu duugay aan la garanayn أنا ما قررنا عن شيء يعني قولي عقلية نوعها صح ده كان صوم مريض كنت wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada hal noolaato anigu waayaan Xuseen Cabdi waxaan halkan ku wareysanayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid Ali Sharmaarke Umar Cabdirashiid waa ninka kaliya laba jeer ra'iisul wasaare ka noqday Soomaaliya oo laba xukuumadood soo matalay Umar Cabdirashiid xaaladda wadanka laba mar ra'iisul wasaare soo noqotay xaalada adag waliba ku soo shaqeysay wadanku aad u adag yahay Soomaaliya maanta sawirkaga si meesha ay marayso 2022 والله horta waa mahadsantahay ayaan waa kaaga mahadcelinayaa runtii adiga iyo barnaamijka runtii aad u daadiyaysid waa muhiim dadka in aragtiyo kala duwan laga taso waxa socda ana waxay la tahay horta dhibka ugu weyn oo 4 sano soo dhaaftay gaaray 5 mabda oo anaga dawladnimadeena ku qotantay ayaa horta dhaawac gaaray maxay kala yihiin horta mabda ugu horeeya ilaa 2000 ilaa 2017 kii aan ka tagaynay dalka lagu soo daadiyay waxay dawladnimada Soomaaliya dib u heshiin inay tahay maadaama dib u heshiin tahay madaxweynaha iyo ra'iisul waxa ka saarnaa xil gaar ah inaysan ku takrifalin oo dawladnimada in laga fogaado wax Allah wixii keenay Soomaaliya kalsooni darrada dhextaala in dulqaad ka badan dadka qof kastoo waqtigiisa intuu joogana inuu ku dadaalo ummadda Soomaaliyeed meesha joogto meel ka dhow inuu ka fiican horta niyo dhaawac gaaray arrintaas oo hadii waxa moodaa inay dib u heshiin ku dhisnay dawladnimadeena meesha ka baxday mabda labaad waxay ahayd in la yiri dawlad madani ah ayaa la samaynayaa parliamentary system ah oo 60 oo kale tahay siyaasadeeda xawal la dhaho dastuurka yani hal dhameystiro laakiin base wuxuu ahaa mabda dawlad barlamaani executive powers golaha wasiirada iyo wasaaraha iska leh madaxweynaha waxa ku dhamaaday wax kama bilowdaan dastuurka hada fiirisid oo wada madaxweynaha wuxuu golaha wasiirada soo saaraan wixii barlamaanka soo saaro iyo wixii maxkamadaha ay soo saaraan ayuu saxiixa ugu dambeeyay hal wax ayaa ka bilowday madaxweynaha wasaaraha magacaabistiisa waxaa moodaa in la baalmaray taas yani madaxweynihii hadda wada hadalkii fadhiya ra'iisul wasaarihii go'aan siyaasadeed iyo arrimihii siyaasadda iyo in golihii wasiirada ay ka shaqeeyaan yani jangoynta siyaasadeed tan amni waa dhamaatay iyo arrintaas dhaawac weyn naga soo gaaray saddex waa federal systemka dalkan xamar kaliya dawlad ka taagnay maalintii xamar guud gashay dalkoo dhan ayaa burburay si mar dambe istaas u dhacay waxa la federal structure hal qaato xawaq kala horeeyaan sabab kala duwan wax ku kala samaysmaan laakiin annaga waqtigeena waxaan ku guuleysanay Hirshabeelle iyo Galmudug labadii markaas yani aan sadeeyay wixii kala to British soo soo goonideeda laakiin space dambe yuusan jirin labadaas aan ku guuleysanay inaan istaajino ugu dambeeyay federaalka labadii runtii power sharingkii aan annaga sameynay wax qaylo ka tamin male madaxweynaha la bedelo hal isku dagaalay siyaasadda laakiin structure-kii aan sameynay waa taagnaa dawladdan 4 sano ay joogtay waxaa soo baxay dad dhahaya annaga reeraheena federal systemka waa ku dulmanahay therefore waxa kaliya aan xal u aragnaa waa waxaan dhageysanayay dawladda waxaan dhageysanayay ninkii ahaa waraysiga ay ka qaaday waare wuxuu leeyahay sunta wax la cabeynaa waqtiga waa dhici kartaa concernka ah waqtiga marka kuleenkooda inaan dalmaan waa dhici kartaa dad badan
in stateska dhexdooda aysan access siyaasadeed badan ku haysan laakiin taas inaan saxno waay ilaa macnaheedu ma wax dhisnaa in la dubiyo wixii dhisnaa la dumin waa waay waa inaan wixii dhisnaana aan wixii aan ka hagaajin karna ka hagaajinaa stateska nama aha inaan ka ogolaan inay ku takrifalaan dadka deegaanka waay waa in stateska ruuxooda wixii ka khaldan aan saxnaa oo ay noqotaa qolo kasta intay rabtaa la ekaatee accesska siyaasadda iyo resourceka iyo securityga saddexdaas ugu muhiimsane ha inay u haystaan access buuxa inay ka noqdaan qayb statekaas si fiican in la saxo waay waay laakiin aan dumina federal structureki federal diin waxaan arkay isagoo dhaayarkii wifi-ga prime ministerka way qasisay wallahi waa inaan federal diin waa meesha systemka dhan waddanka laga ma aha inaan federal diin Waay, waa inaan federalkiisa inaan dhisnaa afar afar waa arrinta security dalkan waxa dumiyey waxay ahayd markii ciidankii ay ka tageen inay dastuur iyo dal u shaqeeyaan ay u shaqeeyaan shaksi siyaasaddiisa marka waxay ahayd understandingka jira wuxuu ahaa securitygaas wixii tababar ah wixii siyaasadda securityga ah in laisla ogaado si aysan u noqon amni hal meel ka raran waay amni hal meel ka raran dal unbuu dumiyaaye dal ma toosiyo waay ciidan siyaasadda ku milan ciidan siyaasadda ku milan oo waxa la dumiyey waxayna dumiyey wey waay shan shan arrinta somaliland waay in qof kasta oo yimaadaa meesha ka sii qaado sidii arrintaasi loogu heli lahaa Dhow. road map cad oo dadka soomaaliyeed ay mar kale dowladada u noqdaan in laga shaqeeyo arrintaas waxaa moodaa in ayadana dhaawac u ka yimid niyow shantaas mabda waay horta dhaawacaan gaaray maxay marka tahay sababta shan mabda oo waaweyn aad sheegtay qofka shantaas burburinaya muxuu rabaa inuu gaaro sababta keeni karta maxay tahay niyow horta ayaan darrada waxay la tahay aniga sababta keeni karta waa sababo badan si badan loo sababeyn karaa laakiin aniga waxay la tahay horta dhibka taagan waxa waaye 2017 hoggaanka wuxuu gacanta u galay dad aan dalka joogin 1988 ilaa 1994 wixii dhacay aan war iyo wacalo u hayn waay anigoo joogay 1988kii markii waqooyi ay ka bilaabatay dhibka iyo duqeynta yacni maalin kasta hoosaa loo socday ilaa hal mar dalka uu dumo waay 90kii waan ka tegey 90kii waan ka tegey laakiin dee inta kale waa la socday intaasna markhaati aan u ah waxaa moodaa hoggaanka gacanta inuu galay in yar ma ahane hadda xataa waxaa lagu wasiir unqood in yar ma ahane dadka badankoodu waxba ka moog wixii la soo maray waxay la soo waxaan qamoo markii dambe oo carte iyo embagaati la yimid oo la dhisayeyna waxba kalama socdaan horta ayaan darrada waxaan isleeyahay waay meesha naga haysto meeshaas marka dowladda ay la wareegeen meesha laga keenay ma oga meesha laga keenay dowladda dareensan maaha waay waana waxyaabaha hadda shantaan mabda aan ku sheegay in dowladnimadeena ku khutamtay ee si sahla dhaawac u gaaray maanta mudan ra-iisul wasaare laakiin nin soomaali ah oo qaangaar ah oo aan ogeyn wixii la soo maray inuu jiro uma malaynayo hadduusan isindhitirayn ama uusan qayb ka ahayn wixii dhacay haddee waxaa ku fasilaysaa qofka maanta jooga oo niyow ciidan u adeegsanaya dad mudaharaada waliba mas-uuliyiin asaga ka horreeyay oo mudaharaaday ama waxba haysan qof nin siyaasi ah gurigiisa inta tegay wiilal 5 wiil oo askar ah wallahi ku laayay oo ilaa hadda meel lagu duugay aan la garanayn ana ma garanayo waxaan ku sheego yani weli caqliyad noocaas ah dalkan soo marin dhibka taagan waxa weeye generation yaryar oo ruuxooda aan la socon meel laga yimi iyo meel lasoo maray ayaa waxaa dowladnimo rabaa in laga dhanacsi inaysaan dowladnimo tahay ninka la yiraahdo farmaajo ee madaxweynaha noqday sumcadda wuxuu ku helay markii adiga uu ku bedelay waqti 6 bilood ah oo kooban ha ayaa la sheegaa wax badan inuu qabtay dowlad liiratay inuu dhisay oo kooban mushaar bixiyey ciidamadii wax siiyey magac maalintaas u baxay ayaa dad badan oo Soomaaliyeed oo aan anigaba ka mid ahay ku qaldanay 2017 inaan ku taageerno arrinta maxaad iga sheegi kartaa
waxa laga sheegayo nin qabtay ma yahay horta nin muuse kaala wareegay horta nin wuxuu nagala wareegay wax uu qabtay 6 bilood horta wax lagu qaban karaa ma jiro dadka Waay. qofka soo aqal loo ogyahay qofka soo dowlad soo ogyahay Waay. horta labadii sano aan soo joogay ciidankii aan dhisnay oo magaalada shabaab ka saaray oo wasaaradda gaashaandhigga iyo kulli laga saaray oo horta yimid ciidanka lacagtiisa soo qaatuu yimid lacagta zaa'idka ah oo uu bixinaya anaa keenay waay waa yaab leh xataa maanta haddaa weydiisay intee laga keenay inuu garanaya u malaynayo waa run calabaha laga keenay laakiin sida lagu keenay ha iyo meesha loo maray tuna muusan ogeyn waay ilaahay amarkiisa anuu joog ma khilaafkii anaga iyo shaqshadihuna soo dhex galay iyo baarlamaanka iyo ayaa lacagta already waa bilaawtay in la keeno markaas laakiin khilaafaa jiray marka anigana dee markaan arkay inaanan yacni waxaan ka doorbiday inaan iska casilo intii aan buuq iyo rabsho iyo la geli lahaa waay muxuu kaala wareegay bal loo tilmaan meesha aad keentay uu kaala wareegay iyo 6 bilood waxa ciidanka lacagta horta lacagta mushaarka ciidamada aan siinayni 3 qayb ahaayeen ciidan 3 kun ah dowladda talyaaniga ayaan ballanqaad anaa ka keenay oo ay siinayeen lacagta 3 kun 3 boqol ciidan ah ciidankaas waxaa ciidanka ugu horreeyey markii aan xamar imaanay 1,700 waxay ahaayeen federal transitionkii dowladda xukuumaddii naga horreysay waay 1,700 waxay ahaayeen ciidan la diyaariyey allah u naxariistay oo maxaakiminta dhinacooda ah oo markaas uu diyaariyey cumar xaashi marka isku daro adiga 3,300 ay kooga yahay waay 3,300 lacagtoodii oo kaamil horta anaa usoo dhameeyey oo dowladda talyaaniga ugu keenay waa la siinayay waxaan bilownay inaan dhisno 5,700 oo ciidan ah kale oo cusub waxaa markaas taliya ka ahaa ninka la gel ruush in la dhihi jiray waay maraykankan ka keenay xataa maraykanka waa qaydiyeen markuu yidhi ciidamo mushaar lama siin jirin sida 5,600 baa iyaga lacagta aan dee markaas inkamkeena waa yaraa dagaalna waa nagu socday marka gacan baan u baahnay ilaa hadda gacan la siiyaa dowladda Soomaaliya kelima dowladda Pakistan iyo dowladda weyn la siiyaa waay 5,700 ciidan ahna doo qorin waxaan wasaaradda gaashaandhigga laga helay ama inaa dadka waay ciidanka intaas ka baxsanaa annaga lacag siinay waay horta intaas ayuu nagala wareegay 6 bilood muxuu qabtay Kampala aqoon in lagu dhamaado oo la yiraahdo iska tag hadda ha يعني waxay galeen sababtaas extension galeen waay sababtaas markan waxay ahayd in uu wadanka gaarsiin karayn ma gaarsiin extension ay qaateen waay ana markaan ka tagay ha arrin kale jirtay waay horta niyo baarlamaankan hortagay maalin waxaan ku iray warnimayhu haddii goolad bishii hal shil iyo 2 shil ka dhacayaan daroolka wax ka khaldiyeen waay laakiin haddii maalintii 30 shil ka dhacay goolada wax ka khaldanta waa sax walba qaldan waa ila khaldan waa goolada sax waay waxa dishigaanay ilaa 2000 نايكي آخر خيري وحنا نبي إلا 2000 واحد لو فشلي والترانزيشن أو كجر وحأبا عنا هاي إن نكسرنا ذلك الترانزيشن وحنقول قرار A to Z سيد اللي هو بحلها دستور خلينا نقرأ constituency assembly ما دام عن referendum جديد أنت اللي مو حنقولها constitution لكن constituency assembly اللي سوي وحي يقولنا صدح إتهم بال اللغة صار الدلك أرمها برلمانك اللي قد يوقف سنين تاسع غير كأحد صوتها شو بقول وحي حياة كنت عادي من قاعد كذا دلك قرأنا أقرأ حقول إلا كان الله بقول يصدح بقول من الحيس كان رابك خلدنا يا ولو قاعد horta meeshaas ugu tagay marka asaga adduunka wuxuu ka sugayay in uu hirgeliyo barnaamijkaas looga baxay transitionka actual extension ka aad 6 bilood gudahood extension barlamaankiya fadhiistay waxa la 3 sano
ayagaa fadhiistay waxaan ku darsanay annagana 3 sano waxaan caqliga gelin waatan dee Amerikaanku marka shalay isagoo ra'iisul wasaaraha ayuu extension sabab u noqday maantana isagoo madaxweynaha waxa laga fili karaa dee waxaan isdheynaa waxba ka bartay taas oo waxba iska bedeli doona laakiin in maanta waqti inta soo galo ayadoo aan waxba heshiis lagu ahayn horta ayaan daro weyn waay dalka iyo dadka haysta maxaad ku macnayn lahayd in inta la isku yimaado Kampala Accord ra'iisul wasaarihi xal loo arko leeraniyo bal adiga tag adaa caqabad ku ah wadanka ayaan daro ayada ruuxeeda in meeshaas la gaarana shalay ayaan daro oo aniga runtii ma aanan ku faraxsanayn in meeshaas la gaaro laakiin dee dantii yaatay maanta suuragal ma tahay in la yiraahdo madaxweyne caqabada ku tahay wadanka iska tag wallahi dee niyo haddii hadda ana waxay la tahay 17 September qarkay saaran tahay heshiiskii ahaa hadduu kaas burburo wixii plan B noqon kara la fiidan doonaa waxaan rajeynayaa kaas anigu wax badan aan kasoo horjeeday heshiiskaas sababtoo ah 100 qofood in la keenay annaga hadda 50 aan keenay 4 sano kadib 50 qofood lagu daray hal magaalo ana waxay la tahay hagarasho weyn aan dhacday runtii dalka iyo dadka waliba dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo maanta siyaasadda qayb ka noqon lahayd ayaa la hagaagsaday caqabada hadda wax loo arkaa villa Soomaaliya iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisii hore macal hadda kan jooga in la dhaqaajin waayo arrintan doorashada waa la dhaqaajin waayo maxay tahay sababta loo dhaqaajin lahayd ma villa Soomaaliya ma laftooda kuwan maamul goboleedyada hagardaamo wada fiir maamul goboleedyada hadda waxa yimid ma aha waxaan ka hadlaynaa sharciga doorashada ayaa 2019 ramaanka la keenay was clear inaan doorasho loo socon waxay voter registration wax la dhaho 2017 in la bilaabo sharciga 2018 uu dhamaado actually Jawaari ba ka hadlayba oo annaga waxaan markaan ka tagay 4 years plan asoo voter registration asoo 2017 sharciga inuu soo dhamaaday 2018 voter education wax la dhaho sidii dadku u aadi lahaa doorasho wacyigelintii 2018 2020 waxay ahayd security-ga iyo dadka train ayagoo ah in la diyaariyo niyo marka maadaama aan la aadin dhinacaas kaba soo tag xataa tii hadda September 17 markii la sii xayay waxaa la soo keenay in la dhaho 400-500 qofood si corruption loo yareeyo si maaragtay yani 4 magaalo state kiiwa mugtay mo dadku bataan lacagtu ma wada nin lacag gaarsiin kara ma jirto mugtay waxaan u fiican tahay dadka iyo dalka in dhalinyarada qayb ka noqoto waxa soo baxay iyo waxa codeynaa intaba nin wadcinaayada marka hagarasho weyn dhacda ma xala marka hadda meesha ay taagan tahay madaxweynaha hal eedo ku leeyahay February 6 hal qodob la soo qabtay intii kale oo lagu heshiiyay asna loo maalmood oo harsanay waxay ahayd garbaha iyo meeyarkeeda see uu ku imaanaya waa ka tagay uu ka duulay dhusan reeb ayadoo waqtigii ka dhacay 10 maalmood kadib ayuu technical committee-gii baydhabo tagay ayaa lagu ogolaaday halkii qodob oo shalay diiday oo shalay ka duulay madaxweynaha shalay ka duulay marka February 19 dhibkii dhacay ma dhaceen maanta meesha taagan tahay musu taagan haddii bisha 6 oo sanduuq lahayn oo aqbal laha oo waxaan la saxiix lahaa adiga markaa usuul tahay ayad sideedaba waa ina ogtahay consequence-ka ee adiga action-ka sideedaba ninka leader-ka ah hal waxa laga rabaa risk siyaasadda waa risk badan tahay risk badan ah banaanka yaal laakiin adiga kan ka imaanay waa ina mar kasta minimum ku haysaa haddii adiga riskiga ugu weyn adiga ka imaanay dadku waqti u galaya waa gooladii 30 qof ku dhimanay waa gooladii 30 qof ku dhimanay ugu dambeyn xaaladda damaasha ay marayso wadanku waad aragtaa faragelin ajnabi ayaa hadda timid oo sadarkiisa caalamku waa qeylinaya dalkaana dad ajnabi ah u badan oo dhaqaale iyo maal iyo dhiigba ku bixiyay sax dawladda noo dhisan Soomaalida isku timin ma dhisan sax dawladnimada Soomaalida inay ku gaaraan la rabay wax loo dhisay sax maxaad kula talin lahayd madaxda Soomaalida maanta waxaan kula talin lahaa horta tanazul in la sameeyo aniga hadda talano waxaan siin lahaa James Swan talano waxaan siin lahaa ninka leaderska James Swan waxaan dhihi lahaa UN-ka
meesha hadda xaaladda taagan tahay dadkaan qol inta lasugu soo xiro ha heshiiyaan kuma heshiinayaan sababta kalsoonidii runtii wax kasta oo ayaga hadda ku heshiiyaanna hirgelinteeda caqabad weyn ka hor imaanaysaa sababta adduunka kalsoonida lagu socdaa kalsoonida haddii ay naga dhammaato oo naga lunto wax hirgelaya ma leh marka waxaa la qaataa in horta la dhex galo understanding horta laga shaqeeyo muhiim waxa kalsoonida socod waxaan u baahannahay February 19 maalin February 6 maalinta uu ka tagay kalsoonida meeshii taagneyd in lagu soo celiyo taas in la sameeyo horta jeer iswaa ka qaban karaa waa inuu negotiate karaya inta aanan shirka la sugu imaan shirku inuu symbolic noqdaa oo ay negotiation badan ka horeysaa ana waxa la tahay kalsoonidaas in la soo cesho wixii nin kasta 100% ma helay soo rabo mugtay waa in la goolada si u rabo 100% u helayeen farmaajo si u rabo 100% u helayeen waxa la rabaa meel dhexe inta la isugu yimaado qof kasta 100% ka tago 100% qaato in dalkan loo direeriyo doorasho marka nimankan Soomaaliya waxa laga rabaa iyo tiimkoodana understandingkaas inay gacan ka siiyaan in la gaaro inta aan miis inta la soo fadhiisto haddana ka dhacaysan dhicin ayadoo waliba markaa desanjina miiska la soo keenay runtii madaxana waxa laga rabaa qof walba soo wax u rabo ma helay laakiin qof kasta 100% inuu inta ka tago dalkan Soomaali meel khatar ay maraysaa ila tan sano oo hadda la soo dhoobay in meeshan aan taaganahay inta ayaan dar marka taladeedu waxa weey runtii inay wax badan ka tagaan wax badan iska liqaan baashan doorasho la geeyay waxaan aragnay oo goobjoog ahayn madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal isku ah oo adigu ka mid tahay madaxweyne Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Gaas madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid ayagoo xukuumadii ah ay nin walba sharaxayay oo dawladii ka mid ah haddana ugu dambeyn tanaasul imaanay ugu dambeyn iyaguna wax ma helayinba oo dad kala soo baxay waxa soo dhan marka dib u fiiriso maanta muxuu muuqdaa dad noocaasa horta dhibaa taagan waxaan horta taas caafimaad ay baxay sababtoo ah xataa 2017 farmaajo isma sharaxeen haddii aniga aan ka hadli lahaa balance siyaasadeed horta da balance ka lumay afartan sano balance wajidi siyaasadeed ra'iisul wasaare waxaan ku leeyahay parliamentary system ka dhaawac gaaray ra'iisul wasaaraha waa siyaasad administrative ma aha mugtay ra'iisul wasaarihii ayaa hadda waxaa loo keenay meel administration kaliya uu ka hadlo oo ka shaqeeyo ra'iisul wasaare waa siyaasad balance ka siyaasadeed waxa ra'iisul wasaare madaxweyne u sameeyay balance in siyaasadda ku socoto way aysan dhinac oo la rabin mugtay tiyo dhan baa hadda luntay taas hadda dhibka keentay meesha aan maanta taaganahay kalsoonidana waxa keenay taas ay ahayd marka wagaas waxaan haynay dad isgarab ordi kara oo ugu dambayna inay wax waayaan aqbali kara aniga Xasan Sheekh hadda hal maalin dib naguma imaan waa wada tartamayni haddana hal hadaf aan lahayn dalka inaan gaarsiino doorasho dadku dhan ku qanacsan yihiin mideeda kale tana qof shaar ma aha atolis doorashada ma tolo kartid hadda haddaan weynin ee okay tahay 4 sano farmaajo markii wuxuu ka shaqeynayay inuu isagu soo noqdo madaxweyne kasta waa ka shaqeyn jiray laakiin shaarkii lama ka jirin marka dambe shaar si khalad halqaan la khalada ayaa wada halqaaliyo raadinayay Xasan Ali Khayr laftiis dabca galay waad aragtay waa sax ra'iisul wasaaraha hadda Roobla la keenay wallahi aniga hadda waxaas leeyahay meesha lagu baxsan karo Roobla inuu yahay haddii uu runtii soo celiyo asaga kalsoonida roolkii siyaasadeed qaato ana waxaan qabaa inay wax badan hagaagi karaan laakiin waxa laga rabaa inuu wasaaraha runtii roolkii siyaasadeed ma aha rool hirgelin iyo implementation kaliya rool siyaasadeed inuu qaato way oo runtii maaragtay taas kalsoonida aad iyo aad baad umahadsan tahay mudane ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayuu ahaa oo ha noolaato waraysigan gaarka siiyay aniguna waa Yaan Xuseen Cabdi intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabad galo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ra'iisul wasaare si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid